እንደዚህ አድርጎ አዘጋጅቶታል። በዚህ ዝግጅት ላይ 169 ከተሞች ከመላ ሀገሪቱ የመጡ ሲሆን 2 አንጋፋ ድርጅቶችን ተሳታፊ ናቸው። taariikhdu waa 9 bishii Yakaatid sanadkan 2011 saacadu waa 7 subaxnimo goobtuna waa garoonka ciyaaraha kala duwan ee deegaanka ee magaalada Jigjiga waxaana soo buux dhaafiyay garoonka bulshada qaybaheeda kala duwan ee deegaanka waxaana munaasabadani ay markaasi bulshada isku timid ay lagu xusayaa foorumka magaalooyinka oo markiisa sideedaad lagu xusayo magaalada Jigjiga munaasabadan oo ay soo camireen isla markaasina ay bilic gaar ah u yeelayaan daayirtii ka soo qayb gashay ee markaasi ku soo bandhigaysay ciyaaraha kala duwan ayaa waxa ka soo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Marwo Sahla Warqi Sawri wasiirka wasaaradda horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo guryeynta ee dalka mudane Jandrar Abay wasiirka dawladda mas'uuliyiin sare oo ka socotay dawladda federaalka golaha kabineetka deegaanka odayaal dhaqameed dhalinyarada haweenka culimada bulshada qaybaheeda kala duwan iyo marti sharaf kale oo markaasi ka kala socotay caalamka iyo dalka gudihiisa xuskani sideedaad ee foorumka magaalooyinka ayaa waxa ugu horeyntii lagu furay heesta astaanta calanka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya. የፖሊስ ማርሽ ባንድ ከልብና መሰግናለን kadib maayirka maamulka magaalada Jigjiga mudane Dayib Maxamed Jaamac oo warantii ka hadlay munaasabadani ayaa cadeeyay in magaalada Jigjiga ay faa'iidooyin kala duwan ka heshay xuskan sideedaad ee foorumka magaalooyinka madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mr. Sahla Warqi Sawri madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar wasiirka horumarinta magaalooyinka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mudane Jandrar Abay dhammaan marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay xuskan sideedaad magaalooyinka Itoobiya marti sharafta odayaasha dhaqanka culimada dhammaan waxaan leeyahay qodob nabad ku gaadhay xuska sideedaad ee magaalooyinka Itoobiya sidaan ognahay xuskan sideedaad ee magaalooyinka Itoobiya waa xus la qabto 2 sano mar waxaana loogu talagalay in lagu kobciyo horumarka waxaana la ku filaanay kusoo dhawaada magaalada Jigjiga magaalada waan soo dhaweynaa waxaan ku soo dhawaada